ديار مثل ديار مثل لا افتح ديار كسوري ما تنوي عيارت أيان هالكن كسكري sababtoo maalintii hore uu baran loo qabtay ciyaartooy ka mid ciyaartooyda gobolka Hawd ayuu si bareer oo toos loo wada arkayo isii ka racsana isagoo aan ciyaartooyga aan u diin maanta ay noqotay saaka salaadii waxaan la hadlay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxaan la hadlay madaxa garsoorka qadar jiran kaasoo aan u sheegay inaan loo qabanayn garsoorkan Kenyaatiga kaasoo aad ogtihiin inuu mar walba yahay garsoor iska adagoo runtii cidun ku foorsan kara kaasoo aad ogtihiin dhamaantiinba inaan garsoor u qalmin waayo waaqaca ka jira dalkeena sababtoo ah lagala fahmay maanta saaka salaadii waan la hadlay waan u sheegay waxaan ku yidhi garsoorka han laga daayo labadayada gobolba uu daran yahay waan la hadlay shil aydiid iyo khadar shilaalba waxay si bareer oo toos u yiraahdeen laga bedeli maayo cadfitaaxow saacad baan la hadlayay waxaan ku yiri garsoorka han laga bedelo isu kaaya diraya waxa laga yaabaa ciyaartaas inay maanta ay noqoto ciyaar khalkhal gelinaysa wadanka waxa laga bedeli maayo sababtoo ah anigu waxaan u arkayay in laga bareeray oo la doonayay gobolka sidii uu hari lahaa runtii anigu aad iyo aad baan uga soo horjeeday maanta inuu qabto garsoor wacdiinteedana waan hayaa maanta waad ogtihiin garoonka waxa ka dhacay rikoodhahaas oo aad ogtihiin badanaaba inuu siruuro iyo calooduhu ay kaashadaan kooga diidaya runtii markii aan nidhi annaga deegaanka gobolka Hawd ahaaneed dhammaanaa soo dirin garoonka waxaan nidhi faartaa naloo eego weligeed may dhicin garsoore intuu faar soo eega haddana soo noqo oo go-aankiisa kusii adkaysta runtii waxaan arkaynay in bareer halkaas loo geystay caddaana taasoo aan imika lahayno arrimaheedii dhanka kale waxaan sheegayaa waxaan horan ka sheegaya taliyaha ciidanka booliiska in maanta sidii ay booliiska u keeneen garoonka Hargeysa istaagay inaan weligeed loo keenin sababtoo ah waad arkayseen dhaleecan caadi ay ahayd oo laleeyahay gobolka Hawd ha loola dhaqmo si aan gobolada kale loola dhaqmin sababtoo ah waxaad arkayseen waxa ciidan wadanka jooga oo la iskugu keenay taasoo caawa ay dhacday in maatidii iyo ciyaalkii guryaha joogay qaarkood xabadii ay ugu dhacaan gobolada darteed iyadoo aan laga tashan oo aan la sababtoo ah horena waan sheegno waxaan idhi war amniga annaga hayna war amni ilaahay baa haya ciyaartooyada gobolka Hawd waxay soo bandhigeen maanta waad arkayseen in kasta waad arkayseen si qurux badan ay ciyaareen waxaan maanta halkan ka dhalacayna wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sidaa horta qaldan ee ay noola dhaqantay garsooraha ajnabiga ay noogu dhiibtay ee aan cidna fahmin wadankeena aan la iska fahmin runtii aan waxaan arkayay inta la leeyahay gobolka Hawd maanta ha haran sababtoo ah arkayseen sida askarta looga soo bixiyay Hargeysa Stadium waxaan u soo gudbiyay anigu waxaan ka hayaa tababar ahaaneed waxaan leeyahay waxaan haystaa caddeyn rasmi saytaasoo ah in goolahaasi soo baxay haddii aanu soo bixin oo la wada arko waan ku qanacaya laakiin haddii kale kuma qanacayo siina socon maayo gool ciyaarahan saas ayay waxaan salaam calaykum warahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دمان وسلامتين بعض صحافة maanta ciyaartii ka dhacday garoonka Hargeysa Stadium waxay ahayd ciyaar wada arkayay oo kulay live-ka ummadda reer Soomaaliland ay ka hadlaysayba ciyaarta ka hor ciyaartan waxa lagu xeeray duruufo gaar ah oo aanay lahayn jirin ciyaarihii hore ee Soomaaliland ka dhacay ama tartankii ciyaaraha gobolada Soomaaliland ka dhacay ciyaarta waxa la yiri ciyaartan waxa weeyaan waa semi final ciyaartani way ahayd oo magaceedu semi final buu ahaa laakiinse ma waxay ahayd markii koowaad ee team harayo imise gobol oo hore oo ayaa soo haray ilaa haddii la doonayo xaaladda ammaanka la adkeeyo ama xaaladda nabadgelyada Soomaaliland la adkeeyo imise gobol oo hore ayaa soo haray oo maxaa la dhahay ciyaarahooda ay final ahaayeen maanta ciyaareen maxaa maalmahaasi waxan oo ciidana iyo waxan oo maxaa la kicin dadweyne loo keenay wax kale iska daay xataa
halku maxaa taageera fadhiisto hal askari ayaa dhinac fadhiyay sa TV-yada laga wada arkayay maxaa Facebook-da iyo meelahan kale baraha bulshada wada taala maanta askartii garoonka joogtay iyo dadkii maxaa ciyaarta daawanayay way isleekaayeen saa loo wada arkayay ama maxaa waana taas mid tilmaamaysay in marka horeba loogu talagalay in ciyaartan xamaasadeeda la kiciyo kaas waa qodobka labaad goolkii maxaa la maanta gool kulaaga markii la laagay goolkeygii shanaad markii la laaganaynay ayaa waxa soo booday maxaa la ninkii goolaha intii aan kubadda la laagin xilliga sharciga FIFA iyo sharciga kubadda cagta wuxuu tilmaamayaa inta aanay gool ciyaartoyga lugtiisa kubadda ka soo bixin haddii gooluhu ka soo horboodo that means waxa weeyaan in goolahaasi yellow card yeelanayo rikoorahana lagu soo celinayo taas waxa markiiba ka marxaati furay calamadihii dhinaca taagnaa wada arkaysa ninka calamadaha ee dhinaca taagan dirta markiiba wuxuu leeyahay maaha oo maxaa la dhahay wuxuu tilmaamayaa inaanu saxayn gool kulaagaasi inta kadib gool siirooday baa ku adkaystay inuu noqdo waa gool markii koowaad ba siirooday wuxuu ku sii adkaystay inuu dhaho waa gool marka waxaanu dalbanay faar waxa soo dhex galay jam fara badan oo maxaa la dhahay xamaasadda shucuurteeda watay faar baa la soo eegay faartii uu tiri marka faartii tagay soo arkay dee faartu maaha meel wax cusub oo meesha u yaalay maaha waa waxaan idinku weydiin hor yaalay baraha bulshada ka arkaysan inaanu goolka uu gooladahaasi soo boodayo inta aanay lugta kubaddu goolhayaha intaanay lugta kubaddu aanay ka soo bixin ciyaartoyga laagay inta laagay wada arkaysan faartu noo soo eegay dee waa taa aad arkaysaan haddana waa kaas wuxuu ku adkaystay go'aankiisii ahaa maxaa la raadayay waa kubaddaasi waa gool maaha gool oo waa la qabtay isagoo soo eegay faartaa idinku waa aragteen qodobka saddexaad doonayaan kusoo gabagabeeyo waxa weeyaan ninkan sirudaa arrinkiisa waa laga hadlay wuxuu noo hayay annaga ciyaartii baran ee benetiska iyaduna hore ugu soo dhamaatay ninkaasi waxa uu naga galay khaladaad waadixa oo kaleer ah maanta Somaliland waxa jooga 10 garsoore oo maxaa la khibradeedii iyo aqoonteediiba loo Somaliland ayaa jooga sabab maanta ciyaaraha hawd loogu soo beego tababare maxaa la dhahay Somaliland ba aanu dhalan oo maxaa la dhahday wadan kale laga keenay maxaa ay tahay garsoore loogu soo beego Somaliland baanu dhalan sababta loogu soo beegay maxay tahay laba ciyaarood hawd ayuu hay sababta uu haynaya maxay tahay maanta ciyaartan ka horeysay buu noo hayay haddana maxaa ciyaartan nagu soo celiyay mar labaadna loogu dhiibay in tababarahaasi in garsoorahaasi la dhahdo haddana isaga haynaya haddana beelaala markhaatigiisi fogeeyaa wasaarad baanu la hadalnay waxaanu geynay dacwad ah inaanu garsoorahaas aanaan ku kalsoonayn bal niman inaad leedahay oo hebelow noo garqaadi maayo oo garqaadkiisa kuma kalsoonin nin la leeyahay haddana uu kuu sii haynaya bal ka waran waxaaban leenahay ninkaas garsoorkiisa ee dhexdhexaadnimadiisaba waanu daadifaynaba ninaad daadifaysay ayaa haddana lagu qasbay inuu hayo ciyaarta maanta waad arkaysan inta khalad ee uu ciyaarta gudaheeda ka qabtay ee bareerka ah ee maxaa la haddii maanta la wada daawado aan hawsheedina ku jirna san u diyaarin lahayn inta khalad ee bareera ee uu naga galay maxaa la dhahay garsooraha maanta ciyaarta dhexdhexaadinay anagu waxaan aaminsanahay in maxaa la dhahay reebitaankan gobolka hawd loogu talagalay maanta in la reebo laakiin anagu ma nihin niman saa ku hadhaya ee waxaan nahay niman sharciyadda ku hadhaya ayaanu nahay sharciga ayaanu la tiigsanaynaa maxaa la dhahay garsoorahaasi sharciga ayaanu la tiigsanaynaa maxaa la dhahay cid kasta oo lug ku lahaydba inay maanta saa u diido hadday noqoto iyaga iyo hadday noqoto nimankii maxaa la dhahay faarta fadhiyey maxaa la dhahay sirudahaasi tusi kari waayey amaba ku qalcin kari waayey dee meelo fara badan baa faarta laga eega bidix iyo midig markay doonaysa inaad qofka sawirkiisa aad tusto saxdaa meesha yaalla marka anu waxaan u arkaynay maanta wixii habihii badnaa meesha ka dhacay inay ahayn taa waxaanu aad iyo aad uga xunnahay in maanta ay xabadi garoonka ka dhacdo wadooda ogeedeen shalay waanu ka hadalnay doraadna waanu ka hadalnay waxaanu ka hadlaynay mar walba inay hawd iyo daadmeedheed laba gobol oo walaalaa yihiin haddii gobolka daadmeedheed si sharciya nooga guulaysto waa walaalahayo waanu u hambalyaynaynaa waa ciyaartooydeedii waa saaxiibadayo hambalyo 100% ayaan u diraynaa haddii sharciyadda uu nagaga guulaysto sharciya nooga guulaysto laakiin haddii marka horeba la lahaa hawd far baa ku godan bal wada la arki doontaana ciyaarta soo socotay maroodi jeex iyo maxaa la dhahay gibil ay wada ciyaarayaan waa ciyaariyaduba semi final bal in intaasoo ciidano Somaliland ka timaada isku timaado iyo in hawd un bartilmaameed laga dhiganayo wada arki doona ciyaartooygu markuu arko iyo taageeruhu markuu arko waxa askarta ka fara badan laba askartii Somaliland joogtay ka fara badan leh shucuurtiisu way kacaysaa dareenkiisuna waa kacaya ciyaartooydu maanta waxa ku sirteen inay wada casaan qaataan sababtuna waxa weeyaan culayska fara badan ee maanta la saaray ee maxaa la dhahay hadina idin meey
labiyo tobankii duhurnimana la keenay garoonka si maxaa la dhahay anaga hadii culeyskeeda gaarkeena la siisanay maanta dacwadaasaan gudbinay dacwadaan natiijadeeda waan sugaynaa waxaan baaqalkan uga diraynaa dhammaan shacbiga reer Somaliland gaar ahaan reer Geesa gaar ahaan reer Axmed Dagax garoonka Geesa stadium maanta ku dhex yaalay taageerayaasha gobolkooda waxaan leenahay mar walba ammaankiina idinku ilaashada ammaankiina maxaa la dhahdaa anagu waxaan u arkaynaa in ammaankiina la doonayo in la ka carqaladeeyo ammaankiina ilaashada ciyaartan maxaa la dhahdaa gobolka Hawd ciyaaraya iyo kubadda cagta waa iyadu waa kubad waana la inaga badin karaa waana badin karnaa laakiin ninka dagaalamaya doonaya inuu dhagax ku dagaalamo anaga maaha anagana naga mid maaha nin waliba maxaa la sharciyada ha sugo intay bal natiijada ay soo saarayso wasaaradda dhalinyarada ciyaaro natiijadaas markay soo baxdana taasoo ka hadlana hadii la ku qanacsantiin natiijadaas markay soo baxdo natiijadaas ha waan ku qancina si sharciya hadii loo qanciyo mar walba waan ku qancina dacwad baanu gudbinay dacwadii aanu gudbinayna maxaa la waxaan u gudbinay guddiga maxaa la dhahay khilaafaadka iyo anshaxaynu gudbinay wixii ka soo baxa weliba dee ilaa wax weeyaan wixii waa wax maanta duuban xasan oo wax duuban oo maxaa la dhahay sawirkeeda yaalo ma fahanti wixii la tusay aragtidaana lagu tuso la raawata waanu ku khasbanahay waanu hambalyeynaa hadaan marin waanu ka shaqeynaa weliba sidii ciyaaraha gobolka Somaliland si sharaf iyo karaamo la ay ugu dhamaan lahayn laakiin inta la doonayo maxaa la dhahaa in Hawd si gaar ah loo reebo ama Hawd bartilmaameed laga dhigto ma noqon doonto mid aan la oran doono inta kamarada lagu soo jeediyo haddana la yiraahdo ka cadhaysiya ha hadlaan waa kuwa kamarada way ku jeedaa maanta kamaradiye taa mar labaad anagu ma aqbali doono aad iyo aad u maasantii waxaan ku soo كل وكور هيسان يبغى يديكي مانتا جرون كيسان يسكن على وكور هيسان ما دام أنا كنت سنة مساعدة الرجال يا أنا هاي سوي يجوا بالكهول وعن هالك كعدينا يا إني مانتا هو شاكر على جرون كيستان الرجيسة أنا يتهاي مد أنا كده عالم Somaliland أنا كده عالمك وعن هالك كعدينا يا هذا هاي سوي يجوا إن أنا مرة أنا يري دونين وقران دونين وحيالا كوري من هي شرعية أمبا قد بدو يالا عيارة قبلة جمهورية Somaliland وحالي ذلك بلادك وحالي يابين وها بردان ما مضاطين وها بردان لكن ما أنت ما هتنتي له هبرني ما قبل كان قرن كان عيب بكتاي ما أنت روح كان عايز تدور الجيسة عند الجيسة هنا واحد حلقة كعضينا نعضنا هيس كدوي قبل كون وحوي وسعر دارمها جودها وسعر دارمها جودها يو كان كعيد مضى البوليس كان لبضبا يجا أياك هنا يهوشة وحليا والوسعر العيارها وحلوها أبورين يدب حقلنا صنايع الله أبورين وما أبورين إن قرنك لو دمير وما أبورين وحليا والمرة بعد مرة صدحتك عليا إن هبيراتي وح قبل كهود ما أنت وحوي لا وحوي إن هبيراتي أو شيء ماشي كان عادي أو شيء إذا مر كستوى أنا لو يري دونين وكلام دونين شرع نوجي رأيه وحوي ورهينا عادي ورهينا وحكو عطاك إن صاو معلم كوش يا جاي عضة هاي قف وديدي كرا ريفري وديدي كرا ما هاي لو غصبوت إن واحد دوري لو غصبوت واللي ما روح أنا مسناه والريفري جا إنه واحد يقول جرابان هو مسناه تذكر هو إسكا ولا بدي وزارة العيارة وحلايا هاي والله من بين غضبة وزارة العيارة قبل كهود إلي وزارة كتر سنة نقطة إنه ده أنا ونان أقبله هنا يتحي وزارة العيارة وحلايا وزير مرة بعد وزير بوصو حلايا وشرعيات ده حلا مرة ووحي شرعي ويالي وزارة عيارها جودي ده فرصة ماذا ولي والله لا هي نقول هاي صارة لكن واحد لا يهاي أنا قد واحد مسنا هذا هاي بدأنا وسع يرتري وبدأ واحد مسنا هنا هبيراتي عيار لقى الله ما هبي اللي راحوا عدبا قدسي عند عدبا كلا قدسي لقى الله ما
sharciga yaala waxa weeye cid haba yaraatee guulaysatay hadday dad mare noqotay iyo haddii gobolka u tahay haba yaraatee guulaystay ma jiro waxaanu leenahay un mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaya un wasiirka ku codsanaya waxaan leeyahay hawshaa iyadaa un madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya gaarsiinaa Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay waanu haysanaa caddayntayadii cid laga bediyey haba yaraatee anigu anoo isku duwiyey waxaan aaminsanahay in cid haba yaraatee laga bediyey ayna jirinba maanta waxay noqonaysaa un in min 5 gool la kala dhaliyey haba yaraatee dee wixii laisku diiday la isku diiday laakiin waxaan mar labaad aan leeyahay on dee madaxweynahan u sheegaya war ummadda ka hor imanaysa sharcigii duminaysa in iyaga la qabto maanta dee tallaabo laga qaado weeyaan shicibka taageeraha gobolka hawdna adeer dee umay dhimaneen in muxuu ahaye dee waxay arkayeen iyaga laftoodu dhibaatada iyo dhibka lagu hayo gobolkooda mar kastana aan dul qaadanayni inta hay'ad socotayna waa arkayseen kun jeer buu u siinayay maanta wallaahi boqolkiiba boqol ilaahay alxamdulillah waxaan leeyahay iyadoo wadacasaan la siiyo gobolka hawd oo welibana loo badheeray oo og tihiin warbaahintiinu inaad ka warhaysaan dhibaatada halkaa ka dhacday waxaanu leenahay war noqon maayo garoonka istaadiyo hargeysa noqon maayo dad tukarada noqon maayo waxaan u aragnayba ciyaar inaan maanta laba ciidamada qaranka amba boolisku ama madaxda qaranku maanta waxaan u arkayba inay tukarada ma ahayd oo dee dagaal tukaro ka socda in ciidan loo dirayo ma arkay istaadiyo hargeysa ma arkayn garoon dee ciyaartoy ku ciyaarayaan oo dee gobollo dee lagu xaqsooraya maan arkay waxaanu leenahay wasaaradda yeeli mayno haddaan gobolka hawd mana yeeli haddaan isku duwi gobolka hawd si sharci daraan inaan ku hadhno yeeli mayno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بعد صحافة هذه أدبان السلامية بعد السلام كل واحد هذا يوم لو قضاء مسح وضبان هذا يكشفوا بيا قضاء بحوي قضاء تاجرياشة يعينك يا قضاء كاين عيارتي قلات كنا نقول عيمانتها يا عيارتي ذي هراء يجون قلات متهونني ونوجد بني ذلك كم السوكة وساردة وحوي عبد الشاعر دني كليلا وحوي ساك وحنا بني يشري ما تكون يسوي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنة تنقلب كبضان إن عيارته هذا وشبيه ونحاول لنا يشارك بدعته حلقة إن رسولها تيم بعضه اللي يجوجيو بحقولين نقطة كنا قاعدين ودي إن وحوي وانو قارنتها ودي وحوي إن سينو أركينا وحوي arrintaasi maanta waxa weeyaan adduunyada mayna arag kubad rigoora ah oo haddana faar weeg garsoorihii u dhowaa waxa weeyaan 2 mitir iyo ka yar buu jiray waxa uu ku amray garsooraha inuu kubaddaasi uu gowdu soo baxay muu asmicin isla arrinta anagoo og waxa weeyaan waxaanu ku qanacnay garsoorayaashii inaanu qaadanayno waxa weeyaan natiijada laakiinse loo caddeeyo rigooraha inaanu gowdu soo bixin وأنا لقعتين وحويان قضية معني بدون صوت الصناع هذا نعد الشيء بالساعات وقوع مري إن أنا وحويان أنا فارت مع المتر تسين وأنا نقول نغني حنا ثانو حنورنا عبد الرشيد إنه سعد ولا دونيو قبل كسوتش له إداد مرير إنه دونيو كول كإنه وحويان دو تاريخ الصغير تحسين واحد صعبنا معها كنت بدأ عكتنا وحويان عيب ودوت تكلام كذا وحويان وسيركي arrimaha gudaha wadanka iyo sirka ciyaaruba iyaga oo garoonka fadhiya oo sigaar cabaya waxa weeyaan in laba dhaco dhalinyartii ay arkayaan in laba dhaco rasaas runtii taas waxaan u aragnaa in dee mas'uuliyadooda ay gabeen jeclaan badan ay ka muuqato saa loo dhamayo dhalinyarta saynu arkaynaba waxa weeyaan tarabuunka oo fadhiya waxa soo galay 100 askari ka badan inay dabada ka soo galeen iyadoo rabshadi jirin aan dhibaato jirin tarabuunkaas uu sacab u sameeyo
hor inaga ogeyn dhibaatadii iyo waxa weeyaan dee iyo dayn meeshii daad moodaysay dee meel dagaal ka socdo dayn la geliyey oo marka hore ogeyn ciyaartii laga kaxeeyey inta meesha ay ciyaar kubadda cagta ka dhacayso aad moodaysay laba kooxood oo cali inay meesha iskugu imanayaan waxaasoo dhan waxa weeyaan hadalkayga waxaan kusoo gumaaleedayaa kubadda arrinka hore haddaan ku noqdo ciyaartii badan isla garsoorkaasi wuxuu kaadh huruuda ku siiyey goladaha iyuu ku siiyey kaadh huruuda isaga oo weliba aan inta uu soo baxay goladahaas aan u soo bixin oo boodboodaya ayuu kaadh huruuda ku siiyey waxa weeye maanta hadda waxaan arkaynaa in kubaddii inuu goladihii kale naga soo horjeeda maanta uu sameeyo arrinta noocaasa weliba lagu abaalmarin waayo kaadh iska daaya haddana la idhaho waxa weeyaan kubadda waa la qabtay isaga oo garsoorii kale calawadaana uu caddayn u ahaa aynu isaguna ka arkayno isaguna noo bartay suu sawirka iyo waxa weeye videogana ka arkaysa inuu leeyahay uu soo baxay waxaasoo dhan waxaan u aragnaa dee kubadda cagta waxa weeyaan cabdirashiid iyo wasiir boos in dee waxa weeye ay siyaasideeyeen taasina wax loo dulqaadan karaya maaha isbarska somalilandna waxa weeyaan dee waa waxda uu ku baabaayo garoonkana waxaan leenahay garoonkan halaga qabanay waxa weeyaan garoonkaa dee waxaa loogu talagalay in lagu laayo dhalinta ama gobolka waxa weeye dad ka soo jeeda oo qorshe waxa weeye laga midaysan waxaan u adkaysanna maaha natiijadana waxaanu leenahay annagu mayna arag kubadda cagta mayna arag gobol laba jeer loo qaldan xaysimaad ogeydeen oo si cad intay gool cad dhaliyeen haddana waxa weeyaan intuu la yidhi garsoori saacad ogedi waxa weeyaan garsoori u hayna waynu garanaynayo wax waras ku sheegay dad ma jiraan haddana maanta in qalad labaad gobolkaa loo galo waxay noocad waynu arkaynaa cabdirashiid gobolka haddii inuu saa u riixo waxa weeyaan dee sportska dhexda mahanayo waxaan cabdirashiid ka codsanaya wasiirka inay iscasilaan haddii kale inay si dhexdhexaada oo waxa weeyaan natiijada iyo nidaamka maanta foosha xana meesha ka dhacay waxa weeyaan dhalinyar badan ay dhakhtarka u jiifto inay natiijada ay si cad ugu noqdaan waxay anagu uma dul qaadan karno inay yidhahdaan garsoori baanu ganaxnay sida caadada ahayd waxa weeyaan ay gobolkooda ku badbaadiyaan daad meel hore loogu badbaadiyey 3 dhibcood aan lahayn in garsoorahan marka horeba danka lahayn oo ingiriiska laga keenay oo ciyaarta loogu talagalay xaysimeeyo daad meel in la yidhi markii dambana isagii baanu ganaxnay ninaan waxaa danba ka lahayn waxaa jirta degan waxa weeyaan maanta uma dul qaadanayno inay yidhaahdaan garsoori baanu ganaxnay ninka kenyaanka ayaa yidhahda waanu ganaxnay wax loogu talagalay ahayd waxna loogu talagalay 3 cisho ninka ka cabaadayna cabdirashiid caddaymaan ku haynaa coda waxa weeyaan telefoonada ah inuu yidhi ma qof nin aan ninka haynin ma qabanayo inta kale garsooraan ayaan codsanay imsa garsoorada ayaa dadka ciyaarahay 10 garsoore ka badan 10 garsoore kale loo diiday ninkaas marka waxa weeyaan ma asmacina anagu beritoda si dhaqanka u hayd inay yiraahdaan waxaanu ganaxnay garsoorihii taa ma asmacino ciyaartii dib loo daawado gool baa laga diiday sababta goolkana looga diiday waxa weeyaan faarta waa lagu bushkariyo waayay ciyaartooyada faarta dalbadeen laakiin garsoore waa laga diiday waxa weeyaan goolka waxa noo dhaliyay ninka madaxa la yidhaa gool cad buu ahaa waxa weeyaan sidii la wadaarkii qof waliba dee waxa weeye meel walba u yaalaa gobolkaa intaanu qaadanay haddana rigoor inaanu qaadano wax dee maaha aanu asmacayno waxaan leenahay ciyaarta berito horena wax la asmacaya maaha iyadoo ciyaartii ka horeba waxa weeyaan dee dhibaatadeedii aan la xalin waxaanu asmacayno maaha qabta si kale ciyaartooyda markii ciyaartu socotay waxay gacanta u qaadeen garsooraha miyaa la odhan karin qalalasa idinka bilaabay waxaan horta kubadda cagta ka dhacday garsoor qaanada taa iyaga xaq u leh waana ka abaalmarinaya ciyaartooyga gacanta qaaday sharciga iyaga waanu hoggaansanayna laakiin annagana waxa weeyaan in sharciga la mariyo oo waxa weeyaan waxaan xaq u leeyahay in la siiyo محمد الشرعي يلا مرينا بس والله